ma doonaysaa inaad ogaato sababta uu guursan waayay Bahjaan Salmaan Khan? haddii jawaabtaadu tahay haa, please waxaad ii raacdaa YouTube-ka. waa tahay waxaan filaa inaad iga soo raacday Facebook-ga ama WhatsApp-ka ama social media dhanka kale. waxaan wada rabnaa inaan ogaano sababta uu u guursan waayay Bahjaan Salmaan Khan. hadda waxaan idin hayaa jawaabta, taasoo taaban doonta dad badan qalbiyadooda. waa arrin naxdin leh si uu u dhawaajiyey inuusan guursan doonin weligiisa. maxaa sababay inuu doonaynin inuu guursado weligiis? taasi ma ahan sababteeda inay tahay Katrina Kaif iyo Aishwarya. inkastoo uu lahaa xiriir badan oo jacayl ah oo aan dhammaad lahayn, waxay qalqal gelisay nafsadiisa. ma aysan ahayn in uusan rabin ama uusan hubin inuu guursado. mar walba oo xiriir jacayl uu sameeyo, wuxuu ahaa mid si dhab ah u tixgeliya jacaylka ama daacad u ah. hase yeeshee mar walba uu xiriirkiisa burburo, waxaa sabab u ahaa qoyskiisa. Salmaan oo markii ugu horeysay aroosi rabay Sangeeta Biljani, oo ahayd gabadhii ugu horeysay oo xiriir uu la sameeyo, iyo Sami Ali, ayaa labada jeer arooskoodii la joojiyey. markaas kadib ayaa Salmaan Khan wuxuu jacayl waali ah u qaaday Aishwarya, isagoo ka codsaday inay guursato, taasoona ay ku soo shaaciyeen baraha bulshada si wada jir ah. Salmaan ayaa Aishwarya kula taliyay inaysan la shaqayn karin aktarada qaar. kadib ayaa waxay go'aansatay Aishwarya inay ka tagto Salmaan Khan aragtidiisa fog. Salmaan ayaa aaminsan inay uga tagtay Aishwarya Vivek Oberoi dartiisa. xiriir dheer kadib, Salmaan oo guursan rabay Katrina Kaif ayaa mar kale soo gabagaboobay oo ay ka raacday Ranbir, wiilka Rishi Kapoor ay ka raacday. Salmaan ayaa waxaa soo gaaray qalbijab aad u weyn. wararkii ugu dambeeyay oo ahaa inuu Salmaan guursan rabay Lilia Vantour dabayaaqadii sanadkii tegay, balse markaan Salmaan ayaa diiday guurka. sababtoo ah Salmaan aad ayuu u jecel yahay familkiisa iyo diintooda, maadaama aysan ku raaxsaneenin Leila qaab nololeedka familkiisa. Salmaan ayaa ka hormariya familkiisa wax walba. Salmaan ayaa ah mid dabeecad xun, kulkulul, xanaaq dhow, muqaadaraadkana aad u isticmaala sida khamriga, xashiishka, daroogada, sigaarka iyo wixii la mid ah. Salmaan Khan ayaa ah mid naaga badan, siina wadi karin xiriirka waqtiga dheer, taasoo ay kaliftay inuu familkiisa iyo xanaaqiisa ka doorbido guurkiisa. waa tahay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkayga ma og tahay. waa walaalkiina Maxamed Dekow oo barnaamijkan idin daadihinaya. Blue Star Media waxay mar walba diyaar u tahay in ay inta cudurkan naga dhamaanayo, maadaama anaga aan nahay company filimada kaliya sameeya, balse waxaan rabnaa inta cudurkan oo naga dhamaanayo in aan idinla soconno, aan barnaamijyo gaagaaban aan idin sameyno. barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyada aan jecelnahay inaan idin soo gudbino. haddii aad nagu cusub tahay, please waxaa sameysaa si aad u ogaato ama gambaleelka furo ee rakumo, subscribe-na dheh. channelka waa channelkaaga, si mar walba aad nala socoto. waa walaalkiin Maxamed Dekow idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo.